السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت isbeddelka waa mid ka mid ah dariiqyada guusha. Isbeddelku waa mid kale inaga sugayo inaynu xorriyadeena uu ku yimaado ma ahan in cid kale ay inagu qasbi karto. Qof walba waxa uu noloshan ku leeyahay sad gaar ah. sirta ka dambaysa dadka nolosha ku guuleystay waxa ay tahay waxa isku dayeen inay dhaqan galiyaan ficilada ay sameeyaan. naajixiinta waa dadka guuleystay. guushu ma aha shay hibo iyo hadid la isku siiyo waa shay qofku uu ku fakaro cidiyihiisana kala soo baxo. guusha waxaa ka horeysa inaad qiimaheeda bixiso waa inta aadan helin guusha noloshan waxaa guuleysta oo keliya kuwa leh yoolal cadcad. qofka mar walba raadsada wadooyinka sahlan aan dhibta lahayn weligiis ma yeesho hansare. aqoontu waxay ka bilaabataa wax akhriska. dariiqa koowaad sareyntu waa garashada himiladaada. yool aan lahayn qorshe waa rabitaan keliya. si aad u guuleysato rabitaankaaga guusha waa inuu ka weynaadaa guuldarrada. horumarku macquul ma ahan isbeddel la'aan. kuwa aan maskaxdooda bedeli karin wax kalena ma bedeli karaan. guuleystayaashu isma dhiibaan isdhiibayaashuna ma guuleystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.